هذا ماشي حوجا يرى كفتن قليل أنا وحنا هاي ننجب هذا أو وذا أو حال كيسة أكتشين مركا ولا يقفل لنا أنا حكم كله marka aan doorashada sameeyayna talooyin badan waxay soo gaarayaan ruuxan dib isaga riixay baashan hore u soco waxaan dhahay ma sameeynaay laakiin shay qariibka waxa waaye ruux Mareykan ka yimid Yurub oo leh 30 sano soo joogo inuu maalin walba sharciga garab maro arintaas arin la aqbali kara ma aha ninkii iska fadhiyay ama ilmihiisa u shaqaysanayay dal nabada marka dalka la isku hagaajiyay la yiri ku soo dhawo lagu doortay garbaha laga istaagay maanta laga ma aqbalayo inuu yiraahdo garoonka kama bixi karto waxaan rabaa warkayga inuu cadaado ani garoonka waa laga reebi karaa laakiin hal shay laga reebi karaa waxa laga reebaa sharciga ayaa ogol inaan Kismaayo aado sharciga ayaa ogol inaan Puntland aado sharciga ayaa ogol inaan aado meel kasta oo Soomaaliya waxaan rabaa aan socdo qaraabo salaana aan socdo siyaasadda aan socdo إسلام أري راعيس هدي وعدوا يترأي ما ذنقون عينا وتيكرها رواني وحن ربع حقوق ذا صف كستو صومالي إنه لها كر دولة ده أفر إيا لبعتن كساعة على الصور عفي وحن كسو جينا إن كجرابان خلط كور محيا خلط كأني قال لي قالي وخلط قف كستو مواطن صومالي لا قالي وحن آدي أدوق حماي عن بارين عقوان كساك على الصور ساري أو هرجب لان لقوا نقبتي وهذا الصوماليات حقي وليهن إن حلقوا دونان صفران حلقوا دونان أي كصفران مقدشة حلقوا دونان أي صفران متقنا مقدشة يمادان لا تقو دولة مركو حن رواينا إلى كجوجا ماشي أكو سعودي الشرعي هرير مريسين كجوجته وحلدنكو احترامه وشرعي محمد عبد الله فرماجو السوق هوتيل كان أنا يقف وين دقن أما تحتوي الجوريجي مسوا بنتي محل الجوريجي حكم الجوريجي حسن شيخ isla hotelka aan asagoo degan lagu wareejiyay maxaa lagu wareejiyay sharciga qofkii lagu doorto haduu ixtiraami waad ixtiraamay sorto ma laha danna Soomaaliya ugu ma jirto haday marka dawladdu waajibkeeda garaweysay ka gaabis haday sharciga burburisay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo dalkan ummado badan dhaqaale ku baxshayna la hadlo annaga waxaan u dagaalameynay oo u tanaasulaynay waxay hada dawladnimada Soomaaliya noo muuqato maanta waxaan rabaa inaan ugu yeero dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxa loo baahan yahay in laga wada hadlo dalkan meesha u socdo haddaan shabaab la diriraynin oo jidadku ay xiran yihiin oo aan la ganacsan karin oo qof xura oo san jirin waxa dhala kara waa gar karti annaga ma rabno inta aan iska aamusno markay waxa laabaan inaan indhaha taagno dawladnimadana waxay ku socotaa meel khaldan dadka Soomaaliyeed waxa laga maarmaan in intay isu yimaadaan tala yeeshaan ani waxa igu dhaca basiid waa waxaan ka tagi karo wax ka weyn ahlaysa waxaan arkaa dawladnimada Soomaaliya dhumaysan arkaa aniga si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ay ugu horeeyaan xisabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoon-yahanada culamaa diinka dhalinyarada haweenka abwaanada cid walba oo wax galaho Soomaaliyeed aniga waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadi lahaa maxay la sharci daradan say u socoto waxaan la maleysanaynaa dhici kara dadkaanu kulligooda baasaboor haystaan ma baxay meeshii rabaani aadayaan caruurtooda aadayaan dadka aan meelay aadaa lahayn waa dadkan iyo dadka lamid waana dadkii loo soo shaqeeyay oo loo taagnaa danahooda in la fuliyo marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxa u maleynaa warkaygu aad inuu cad yahay wax kalena ma aha waxaan rabaa inay warkayga cadaado dawladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dawladda inay burburto kama aqbali karno maxamed cabdullaahi farmaajo soo boorsidiisa wato suudkiisa wata ana magacaabo soo dalkan wax ka galay oo resource ma jiraan asaga mustafiid ah asaga ka faa'iideysta xasan cali khayr waa sidoo kale annaga dalka waxba naga galay mana ogol inuu burburo dariiqo uu ku socdo waa khaldan tahay waxaan leenahay stop meesha joogto ma dhaafi kartid Soomaaliya isu timaado mahadsantiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.